waxay ahaayeen lamaanaha ugu caansan shirkadda filimada samaysa ee Hollywood dhexdeeda balse waxa uu ku sameeyay khiyaano aad u daran oo ka ilmeysiisay iyada waxay ogaatay khiyaanadiisa 10 sano kadib xiriirkoodii waxayna ku ogaatay si la yaab leh waxa uu go'aansaday in uu guursado fanaanad caan ah waxa uuna ugu yeeray xafladii aqalgalkiisa balse markii ogaatay xafladda arooskiisa wixii ay samaysay ayaa caalamkii oo dhan ka yaabiyay Chen waxay ahayd jilaayad caan ah waxayna lahayd qoys aad u faraxsan oo ka kooban 3 caruur ah iyo ninkeeda waxayna u dhaxday aktarka caanka ah ee Ben Affleck noloshooduna waxa ay ahayd mid farxadu ay haraysay ilaa ay ku dhacday arintii weynayd ee baabi'isay farxadooda maalin ayaa Chen oo internetka baalashiisa rogrogaysa waxay akhriday war aad uga nixiyay ciwaanka warkaas waxa uu u qornaa sidan in ninkeedu uu ku khiyaanayo Chen haweeney aan la filayn markii hore Chen waxay istiri warkaasi waa been abuur iyo war doqonnimo ah hadii la rumaysto balse waxay kale oo dareentay shaki kadib markii ay dib u xasuusatay habdhaqankii ninkeeda muddadii ugu dambeysay waxayna bilowday in ay warkaas macluumaadkii uu qoray oo dhan ay akhriso ilaa ay la kulantay naxdintii ugu weyneyd ee nolosheeda waxay kale oo ay ku arkaysaa wargeyska sawirro muujinaya ninkeeda iyo haweeneyda guriga uga shaqeysa ee shaqaalaha u ah ee caruurta u hagaajisa ee shaqaalaha caruurta u ah waxaana ka muuqday in ay ku jireen xaalad jacayl iyo qaraam oo aad u sareysa waxay isku dayday in ay beensato warkan waxay u tagtay ninkeeda Ben iyada oo xanaaqsan hor dhigtayna sawirradii kana codsatay in uu ka siiyo tafaasiil lagu qanci karo waxay sugaysay in uu beeniyo warkan ama xujo difaacaysa isaga uu la yimaado hase ahaatee waxa uu u qirtay xaqiiqada una sheegay in warkani run yahay qirashadiisii ayaa iyadii ka yeeshay mid gashay murugo xanuun badan nolosheedii iyo farxadeediina burburisay waxay bilowday inay oydo waxay ku naxday ninkeedii 10 sano qabay dadkana ay ugu jeclayd oo khiyaamo kula kacay ma aysan garanayn waxa ay u sheegi doonto caruurteeda saddexda ah sideebay ugu sheegi doontaa in aabahood uu xiriir khiyaamo ah la sameyn jiray barbaarisadooda ahna shaqaalahooda khaaska u ah iyaga Ben ayaa isku dayay in uu dajiyo xaaladeeda marmarsiyana u sameeyay khiyaanadiisa waxa uu u sheegay in sanadihii u dambeeyay oo dhan khamriga uu aad u cabayay dabcigiisuna isbedelay oo xitaa uu caruurtiisa u dulqaadan jirin agjoogooda sidaas darteed ayuu ka fogaaday guriga muddo usbuuciye ah ilaa iyo inta xaaladiisu ka fiicnaanayso sidoo kale saameynta khamriga ayaa ka dhigay mid sameeya waxyaabo waali ah sida in uu ballano jacayl ula baxo shaqaalaha caruurtiisa xaaskiisa oo aan ogeyn markii la weydiiyay mowqifka uu ka qabana waxa uu ka cudur daartay khiyaanadaas Chen ayaa diiday cudurdaarkiisii waxayna u sheegtay in aysan rabin in ay sii wada joogaan waxay ka dalbatay furiin iyo sidoo kale inay iyadu xaq u yeelato inay caruurta haysato oo ay barbaariso waxaana dhacay furiinkii kuna dhacay qaab nabdoon iyaga oo raalli ka wada ah wax dagaal oo isku dhacana aysan saxaafadu maqlin balse markii furiinkoodu saxaafadu maqashay warkaasna aad loo warbaahiyay ayaa bulshadii Mareykanku yaabtay waayo jamaahiirta Mareykanka iyo cadaafaha caalamka ku nool waxay ka xanaaqeen sababta uu u ilaashan waayay qoyskiisan faraxsan iyo sababta doqonnimada ah ee uu uga jiray iftiinka mustaqbal ee ay ku fakaraysay xaaskiisa iyo caruurtiisu sidoo kale dadka qaar ayaa kaga camiranayay baraha bulshada isaga sidoo kalena meeshii uu aadaba sawir baalala daba taagan yahay oo looga naxsanayay waxa kale oo weerar dhanka joornaalada ah ku soo qaaday qaar ka mid ah wargeysyada xaaladii sidaas ah ayaa waxa soo galay qof aan la filayn oo difaacay isaga qofkaasi waxa uu ahaa caruurtiisa hooyadood ee Chen waxayna dhammaan dadka ka codsatay in aysan soo dhaxgalin arrimaha shakhsiga ah ee qoyskooda inkastuu ahaa ninkeedii hore ee khiyaameeyay misana waa caruurteeda saddexda ah aabahood waxa kale oo ay ka gudubtay wareerkii nololeed ee la soo gudboonaaday umana aysan joojin markii la furay dhowr bilood kadib ayay la kulantay nin ganacsado ah misana lawyer sharciyaqaan ah oo la yiraahdo Miller aragtidii koowaad ayuu ku jeclaaday kadib markii ay ku kulmeen guri uu lahaa mid ka mid ah saaxiibadeeda waxa uu una u qirtay jacaylkiisa iyaduna waxa ay aqbashay aad ayuuna ugu farxay aqbalkeeda mar dhaweyd ayay ahayd markii uu ka codsaday inuu guursado balse dib ayay u yara dhigtay si ay caruurteedu ula qabsadaan ninkan cusub sidoo kalena waxay xiriir fiican oo saaxiibtinimo la leedahay jacaylkeedii hore Ben markii uu bixiyay ogeysiis ah in uu guursan doono hoobalad caan ah waxay ahayd qofkii ugu horeeyay ee u soo hambaliyay xitaa waxay u dirtay caruurteeda si ay u bartaan aayadooda cusub waxayna kulmaan Ben iyo Chen xilliyada munaasabadaha iyo iidaha waxayna waxaas oo dhan u sameynayaan caruurtooda dartood si aysan uga xarimin kulamada qoyseed ee muhiimka ah wax walba oo dhaca iyo khilaaf walba oo soo kala dhex kala kama aysan yeelin kuwa kala carara welina waa hal qoys oo is haysta
waxaan u hambaliyeynayaa Ben guurkiisa waana ku faraxsanahay inuu helay jacayl mar kale waxaana u rajaynayaa nolol qurux badan